بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلي أستاذ محمد خالد كلية Health Science مع عفماتك علوم عفماتك جامعة بري أفريقيا. لكتشر كان وحا ودبا السعودي Basic Introduction of Microbiology. لكتشر 2 هوري وحا أسو شرحني لكتشر 1 وحا أسو شرحني وامحي Microbiology definition كيسي سيلس كنوعيديسي waxaas interaction guud ayaan soo baxnay bacteria microorganismska iyo microbiology guud ahaan intuu qaybsamo hadda waxaan rabaa inaan idin sharxo lecture-kan ku xiga viruseska viruses waa maxay iyagu are the smallest and the simplest of the agents of infection in man agents isaga waxa loo yiri waa idin sharxi doonaa isagu waa walxaha walax baan ku macnaynaa agent waa walxaha ugu yar oo ugu simplesan ugu khafiifsan kuwaasoo cudur ku sababa bini aadanka marka waxa idin soo sheegay viruska horay inuusan noola ahayn maxaa yeelay virusku cell ma leh cellkuna waxa lagu macneynayay basic structure and functional unit of life nolosha waa midka ay kasoo iskunto saas daraadeed maadaama uu cell uusan noola ahayn waxa uu yeeraynaa walax ama agent dabeecadaha uu leeyahay propertieskiisa maxaa ka mid ah properties waa dabeecadihiisii they are acellular da macnaheedu waa absent halkan xogaa isku dhiji acellular waxay ku tusaysaa maxay inuusan cell lahayn and have simple organization isagana maxay guud ahaan aad iyo aad ayuu macnaha qaabku u samaysan yahay waa very simple macnaha okay they possess either DNA or RNA waxa uu leeyahay possess macnaha waxa uu leeyahay weeyaan either midkood ama DNA buu leeyahay ama RNA labada mid buu leeyahay in the same structure macnaha halka virus labada ma wada yeelan karo laakiin labada midkood ayuu yeelan karaa laakiin nooleyaasha kale sida bacteria iyo waxa soo dhan iyagu labada way leeyihiin they cannot replicate independently of outside of the host cell okay marka si madax bannaan uma tarmi karaan selka bannaankiisa dadmiinaysu wuxuu baahan yahay cell ama host buu baahan yahay hostiga selkiisa inay ku sii dhex noolaadaan ayuu baahan yahay marka kaligood banaan kuma tarmi karaan structure ahaan marka virusku si uu yahay structure-kiisa iyo morphology waa structure-kiisa guud ahaan qaabkiisa viruses marka virusyashu are basically consist of a shell ayuu leeyahay khilaaf oo kale macnaha dabool ayay leeyihiin kuwa loo yaqaano capsid ay leeyihiin which may be icosahedral helical in shape kaasoo maxay inta badan iska leh inta badan wuxuu leeyahay icosahedral shape macnaha capsidka ayaa wuxuu leeyahay saddex nooc la dhaho icosahedral nooca la dhaho helical iyo nooca la waxa arkaysaa viruseska loo yaqaano complex halkaas aan ka ilaaway okay capsidka marka saddexdaas nooc leh saddexda nooc suuradooda way noo soo socdaan capsids may be surrounded by an outer membrane capsidka marka oo saddexda nooc midkood lahaan kara waxa dhici karta in uu korkiisa ku dahaaran yahay xuub kale uu korkiisa ku dahaaran yahay outer membrane kaas marka waxa uu naqaanaa maxay called envelope ayaa loo yaqaanaa outer membrane kiisaas ku dul dahaaran waxa loo yaqaanaa envelope shaqad oo kale korkiisa ku dahaaran okay they are 50 structure type termed complex with a capsid structure which is neither helical nor icosahedral complex viruses may also possess an envelope okay marka waxay ku xiran tahay structure ahaan waxa dhici karta in complex viruseska kuwaasoo inay lahaan karaan capsidka lahaan karaan capsidkaas which is neither helical nor icosahedral oo nooca complexka ah marka intaan wax yar ku complex roobin intaan yar iska jir halkaasaan intaas ku qeexay okay farta inay siinina computerka noocan ku isticmaalayo waa nooca Apple marka waa kan nooca kan waa maxay waa naked icosahedral ama structure kan capsidkii weeyaan capsidka waa intaan marka ama noocan buu lahaan karaa icosahedral buugta qaarkood waxa ku arkaysaa cubic baa ku arkaysaa qaarkoodna waxa ay leeyihiin helical structure oo nooca kan ah isagii oo capsidkii oo halkan ku jira oo waxa korkiisa ka sii dahaaran envelope waa kan waa enveloped icosahedral so virusyasha waxa arki doonaa classification-keeda marka u tagno qaar waxa ay leeyihiin maxay envelope iyo qaar aan envelope lahayn so kuwa aan envelope ka lahayn waxa uu yeelaynaa unenveloped virus okay kuwa envelope ka iska lehna waxa uu yeelanaynaa enveloped virus
so enveloped icosahedral virus waa virus envelope leh structure-kiisuna yahay icosahedral oo aan helical-kan dhuuban noocan aan ahayn. viruska qaarkood waxay yeelan karaan maxay complex shape ayay yeelan karaan. Okay, marka structureska kuwan dhexe waxa uu yahay promoters waa proteins actually kuwan yaran proteins badan weeyaan protein subunits. capsomer kuwan laftigooda waa maxay waa proteins. noocan kale oo iyagana halkan ku dhex jira waa nucleic acids waa DNA ba halkan ku dhex jirta soo aragtid. Okay, kuwan banaanka xigana waa maxay waa spikes waa meesha wax ku qabsado weeyaan spikes. marka spikes waxay ku kor taagan yihiin maxay envelope korkiisa waxa ku taagan qodxaan oo kale oo loo yaqaano spikeska waa meesha uu ku qabsado viruska cellka markuu rabo inuu dhex galo. size-ka viruska marka way kala duwanaan karaan oo viruska qaarkood waa maxay waa very small viruses oo ah sida bacteriophage macnaha magacyadan iskale oo aad buu u yar yihiin. qaarkoodna waa maxay xoogaa way ka weyn yihiin sida poliovirus oo ah tan dabaysha keeno. kan waa maxay polyomavirus, adenovirus, chlamydia, bacterium tan waa bacteria, vaccinia virus kan waa escherichia coli kan waa bacteria. bal fiiri bacteriadan inta ay la-eg tahay iyo virusyashu inta ay la-eg yihiin macnaha waxaad dareemaysaa bacteriadu inay ka weyn tahay viruska noociisa ugu waaweyn qaarkood. capsidka marka oo ah structure-kan aan kuu sheegay intan ah capsidkaas is an arrangement of protein subunits. proteins ayaa korkiisa ku dahaaran maxaa yeelay waa kan these are all proteins waxaan waa proteins waa halkan waa protein this is what protein marka waxaan ku kor dahaaran capsidka waa proteins these are protein subunits. Okay, proteinskaas termed protomerase or capsomerase labadaas waa loo yaqaanaa. waxaana korkiisa kasii dahaaran enclosing within the capsid is the genetic material. capsidka waxa kusii dhex jirana waa genetic material ama waa DNA-dii ama waa RNA-dii which is either DNA or RNA labadooda midkood ayuu kusii dhex jira capsidka dhexdiisa and maybe single stranded or double stranded. DNA-da laabkeeda ama waxa dhici karta inuu laba xabo isku laaban saas tahay double stranded ama ay hal strand leedahay. classification of viruses. viruseska marka see loo kala saaraa ama abtirsigooda. viruses are classified into different groups on the basis of dhowr qaybood ayaa loo qaybiyaa iyadoo loo fiirinayo the nature of the host yuu ku dhacaa viruska. viruskan ma mid ku dhaca animalska ma mid ku dhaca plantska dhirta ma mid ku dhaca bacteriada ma mid ku dhaca insectska ma mid ku dhaca fungalka meesha ku dhacay iyadoo loo fiirinayo ayay ku kala xiran tahay. waxa kale loo fiiriyaa they possess whether they possess an envelope ma leeyihiin mise ma ay laha oo capsidka korkiisa ma kusii kor dahaaran yahay envelope mise kuma dahaarna. haddii marka envelope ay leeyihiin waxa ugu yeeraynaa enveloped virus haddii uusan envelope lahayn waxa ugu yeeraynaa unenveloped virus. waxa kaloo viruska loo fiiriyaa marka la kala qaybinayo the type of nucleic acid they possess nooca nucleic acidka ay leeyihiin. nucleic acidka marka ma DNA nucleic acid bay leeyihiin mise RNA nucleic acid bay leeyihiin. waxa kaloo loo fiiriyaa morphology of their capsidkiisa siduu u egyahay. capsidka marka saddex qaybood baa usoo qaybinay nooca helical capsid oo saa u dhuubnaa nooca icosahedral ama cubic capsid oo sida structure-ka sugarka benzene ama sugarka glucose oo kaleeta ah marka benzene loo sawiray oo kale ama nooca complex capsid. the diameter waxa kale loo fiirinayaa the diameter of the virion or nucleic capsid cabirkiisa small viruses ba mise waa large viruses. waxa loo fiirinayaa their immunological properties difaacooda iyo waxyaalaha ay wataan proteinska ay wataan awoodda ay leeyihiin iyadoo loo fiirinayo ay ku kala xiran tahay. soo qaar baa very highly effective ah oo aad iyo aad khatar u ah. waxa loo fiirinayaa intracellular location of the viral replication. virusku cellka meesha uu kaga dhex tarmayo ma cytoplasm ku dhex tarmayaa mise nucleus ku dhex tarmayaa. their clinical features laftigooda xanuunada calaamadaha ay qofka ku sababaan baa loo fiirinayaa diseases caused and method of transmission cudurrada ay sababaan iyadoo loo kala qaybiyo. haddana waxa kaloo loo fiirinayaa marka la kala qaybinayo viruska loo abtirinayo qaabka uu kala gudbaan midbaa sexually transmitted ah galmada la isugu gudbiyaa midbaa hawada la isugu gudbiyaa by air midbaa by direct contact indirect contact. marka noocyadii ayaa ku kala xiranta seebuu u tarmaa marka virus. all viruses make copies of themselves in the intercellular phase. viruska marka uu selka soo dhex galo ilaa selka waxaan niri banaan isagu sel ma leh banaankiisana kuma noolaan karo host buu u baahan yahay qofku ku dhex noolaada ayuu u baahan yahay parasite ah
qofku markuu selkiisa soo dhex galo gudihiisa soo dhex galo wuxuu la wareegayaa selka dhan maskaxdiisa ayuu la wareegayaa markuu selka maskaxdiisa la wareego waxa uu samaysanayaa copies isagiiba iscopy garaynaya all viruses have to generate messenger RNA buu samaynayaa marka RNA oo messenger RNA ayuu samaysanayaa to produce protein messenger RNA da marka waxay ka saacidaysaa inuu ku samaysto proteiniskii u baahnaa iyo nucleic acid copies DNA-diisi hadduu rabay iyo RNA haddii uu rabay buu ku samaysanayaa the end result aakhirka waxa soo baxaya of viral infectionka soo baxane may be lysis wuxuu burburinayaa of the cell lysogeny cellkii uu ku dhex noolaa ayuu burburinayaa where the host cell is not destroyed cellkii host cellkii ma uu burburinayo but continues to support viral replication marka viral lysogeny macnaheedu waa maxay waa maadooyinkii burburinayay selka ayuu ka ilaalinayaa buu joojinayaa ayuu burburinayaa si selka uusan iskaga dilin maxaa yeelay selkii isagaa weli damku wato wuxuu rabaa inuu selku ka taageero xagga taranka okay halkan waa viruska marka uu selkii way kan selka markuu rabo inuu soo galo stages buu maraa stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 stage 5 stage 6 stage 7 okay mid kasta marka maxaa dhacay stage kasta viruska uu ujeedaa banaanku joogaa marka koowaad wuxuu sameynayaa wax loo yaqaan attachment viruska waa taa idin sheegay spikes qodaxo oo kale ayuu lahaa spikeskaas wuxuu qaabilsan inay kula dhagaan virus host cell receptorski selka attachment marka uu sameeyo uu ku soo dhawo haddii banaanka taagan yahay maba geli karo waa inuu marka hore qabsadaa attachment stage 1 to specific host cell receptors host selka banaankiisa receptors ayuu leeyahay receptorskaas kuwa uu is yaqaanaan ayuu ku dhagayaa this binding determines what can be infected halkaas ayaa marka uu awoodiisa laga ogaanayaa macnaha selka uu geli karo iyo qaabku geli karo penetration marka uu selka uu qabsado attachment ku sameeyo penetration selka dhexda u soo geliya uncoating capsulkii waxa wali capsulkii guduhu soo galay capsulkii waxa dhici karta envelope inuu banaanka kaga soo tago penetration markuu sameeyo capsulkii baa gudaha soo geliya capsulka gudihiisa waxa ku dhex jira DNA ama RNA okay marka DNA iyo RNA-diisii ayuu wax ku sameynayaa uncoating wuu iska saarayaa capsulkii buu iska saarayaa daboolkii capsulka saarnaa release of nucleic acid kadibna DNA-dii ayuu meesha kusoo dhex zeynayaa waa kan hadhow stage 4 baa loo imaanayaa oo ah macromolecular synthesis wuxuu samaysanayaa proteinskiisii proteinska uu samaysanaya marka wuxuu u qaybsamaa ilaa 3 qaybood early proteins ama early mRNA markiiba mRNA buu samaysanayaa and protein synthesis proteins to shut off host cells proteins demiya selka proteinskiisii ayuu samaysanayaa oo kadibna isaga si uu selka ugu shaqeeyo protein to replicate viral genome if needed si markaas uu viruskiisii ugu samaysto hadduu u baahan yahay waxa kaloo samaysa replication of the genome kadibna maxay DNA-diisii baa u tarmaysa hadduu viral RNA ahaa markuu selka soo galo DNA buu isku bedelayaa waxaa samaysmaya hadhow aakhirka maxay late mRNA and protein synthesis proteino kale structural proteins isaga qaab dhismeedkiisii proteino u samaysanaya laftigiisa okay markuu intaa sameeyo stage 4 la gaaro stage 5 buu soo gaarayaa post translational modification of proteinskii structurekiisii iyo wixiisii dib habayn bay ku samaysanayaan aakhirka wuxuu sameynayaa wixiisii dhan buu assembly isku geegeysanayaa of new virus particles wixiisii dhan isku geegeysanayaa 7 release banaanka u soo baxaya marka lysis of the cell or budding out ama selkii buu saa intuu burburiyo kasoo dhex baxo ayaa wuxuu ku sameynayaa banaanka uga soo baxaya selka ama selka markuu dilaaco kasoo yaacaya oo selskii kale oo deriska la ahaa buu saa kusoo weeraraya host cell with a specific chemical group receptors marka receptors waa maxay oo host cellkii wuxuu leeyahay korka ku leeyahay specific chemical group ayuu ku leeyahay casharkan kale intaas waxaan kaga baxay introductionkii viruska hadda waxaan usoo gelaynaa bacteriada hadda u nimaano bacteriada waa bacteria are divided into 2 main groups by chemical staining and light microscopy which are gram positive and gram negative marka kan horey waa idinkugu soo sheegay waxaan u malaynayaa in intii hore aan u yahay casharkan halkan haddaa idin sharaxo bacteriada gram positive-ka ah iyo bacterium gram negative-ka ah weeyaan structure-kii bacteriada iyadoo isku samaysay weeyaan dhexda iska kala jartay waxa uu arkaysaa binary fission mid kasta waxa ay leedahay flagella tan flagella bacteriadiisa u qaybsantay weeyaan marka nooca gram positive-ka ah waxa ay leeyihiin korkooda proteinskan ayaa korkooda ku dahaaran ma aragtaan surface proteinskii bay leedahay waxay iskaga yihiin ribosome way leedahay inclusion body intii way leeyihiin laakiin outer membrane-ka marka midan ay leedahay kan waxa ka samaysan yahay peptide oo glycan
laakiin kan bacterioglycankiisa waa very thin saa u jeedid gram negative-ka waa very thin aad buu caata u yahay kan bacterioglycankiisana maxay waa very thick aad buu u weyn yahay marka waxyaalahaas oo kale ay kala duwan yihiin gram stainkii weeyaan systemkan waa qaab bacteriada lagu kala saaro nooca ay tahay bacteriada inta badan waxaa loo qeybiyaa most bacteria are differentiated by their gram reaction due to difference in their cell wall structure cell wallkooda structurekiisa gram positive bacteriada waa tee waa bacteriada marka kalarka lagu daro waxay yeelataa purple color marka crystal violet maadada lagu daro after decoloration with acetone alcohol intii aan marka crystal violet lagu daro waxaa lagaga dhaqayaa maado loo yaqaano acetyl alcohol alcoholkaas looga dhaqayaa laakiin noocan gram negative-ka bacteriada loo yaqaano iyadu wax weeyaan waa bacteria taasoo qaadata kalarka pinkiga marka stainka safraniin lagu daro marka crystal violet baa ku dartay waa ka dhaqday kadib stainka waxaa ku daraysaa waxaa kaga dhaqaysa alcohol hadhow safraniin markaa ku dartid after losing primary stain crystal violetkii meesha ka baaba'aya oo safraniintii gadaal ah kaga dartay bay qaadanaysaa when treated with acetone alcohol markaa kaga dhaqday marka gram stainka bacteriooyinka gram positive-ka ah iyo example bacteriooyinka kuwa gram negative-ka ah kuwa gram positive-ka waxaa ka mid ah kuwa kokayda ah staphylococcus streptococcus enterococcus kuwaasa ka mid ah iyo kuwa bacillus-ka ah rhodlite listeria bacillus corynebacterium kuwa gram negative-ka waxaa ka mid ah neisseria peris neisseria gonorrhea neisseria meningitis watanka jabtada keenta iyo meningitis-ka labada nooc baa u sii kala qaybsantaa moraxella interbacteriaceae groupkan la isku dhaho oo kala habdhiska dheefshiidka iyo kuwaas ku dhaca caloosha iyo mindhicirka iyo shubankii waxaa sababa escherichia coli klebsiella salmonella shigella proteus pseudomonas haemophilus bordetella legionella colymobacter camelobacter iyo helicobacter iyo vibrio cholera waxaa jirta clostridium oo iyadu gram positive ah iyo anaerobic bacteria sida bacteroides cellular element external to the cell envelope bacteriadu markaas cellka banaanka maxay ku leedahay bacteriadu waxay leedahay flagelladu muxuu bacteriadu ka caawiyaa movement organ is the organ of movement waa midka lugaheeda ay ku soconaysa weeyaan bacteria so it's composed of protein named as flagellin proteinka flagellin ayaa ku dhex jira typically marka flagellaha size ahaantiisu waa 0.02 weeyaan thickna weeyaan aad buu adag yahay lengthigiisuna waa 10 cabirkiisa ahaan micrometer way halkan iyo 3 to 20 micrometer in length dherer ahaan fimbriae pillae waxay u isticmaashaa waa sida timo oo kale iyada waxay isticmaashaa cabir ahaan iyadu waa 6 nanometer waxayna u kooban tahay proteins based on the function classifier of common pillae and sexy pillae pillaedu marka waxay u qaybsantaa waa protein weeyaan horta waxayna shaqadooda ku xiran tahay laba nooc baa loo qaybiyaa common pillae iyo sexy pillae common pillae marka shaqadeeda sexy pillae shaqadeeda waa maxay and straighter thicker and longer their function to transfer genetic material DNA-dii wixii baahnayd ayay ku gudbisataa xubinteeda taranka oo kale common pillae wax lafteeda ugu isticmaashaa timo oo kale weeyaan wuxuu isticmaashaa adhesion inay kula dhigto salkii ayay ugu isticmaashaa bacteriadu waxay ku leedahay bacteriada qaar baa spore samaysta oo ah gal kore bay sii samaystaan they are capable of surviving bacteria under adverse environmental condition example bacteriada marka xilli abaareedka ama waqtiga adkaato oo nafaqa aysan haysan oo aysan tari karin sporekaasay samaysanaysaa gal bay samaysanaysaa waxayna kaga gudbaysaa during adverse environmental conditions marka xaaladdu bay'adu ay aad u xun tahay like heat marka kulayluhu jiro dry markay meel qalayl joogto freezing markay qabow ku dhex jirto action of toxin chemicals and radiation marka sun lagu sii daayo ama chemicals ama shucaac lagu sii daayo qoraxda kale ku dhacdo galkaas samaysanaysaa the thick waxy coated mycobacterium tuberculosis bacteriada TB-da keenta magaceeda waxa loo yaqaanaa mycobacterium tuberculosis waxa korkeeda ku dahaaran waxy xeer oo kaleeto which can be detected by Z and Nelson stain waa midab la mariyo ayaa lagu ogaadaa bacteriada marka waa kan waa taa idin sheegay oxygen requirementiga depending on the oxygen waxa loo qaybiyaa obligate mid oo ku noolaata when oxygen is available haddii oxygen haysto way noolaanaysaa tanne obligate and aerobe haddii oxygen in the absence of oxygen haddii oxygen aragto way dhimanaysaa tanne bacteria grow in the presence or absence of oxygen facultative anaerobicana haddii oxygen heshan way ku noolaanaysaa haddii kalena ma kala jecla microaerophilic bacteria grow best at reduced oxygen bacteria marka oxygen ku yar tahay marka fiican tahay marka si fiican marka u koraysaa
marka casharka halkaas uu nagu ogyahay cashar wuxuu ahaa aan sameeyey khulaaso fayraskii basigiisa iyo bacteriada basigeedii aad iyo aad baa mahadsantihiin waa maxamed khaalid jaamacadda bariga africa oo idin wada salaamay aad iyo aad baa wada mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu